عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سود هذا والد يرديده وإنه كان كم ما كان تلوجة يالسام إذن كان سود وكله مركا سود هذا مسجد التوحيد حفلتي وقبنا يوم قال نجيبين ترى يرضى مركا أنا وما عقول دي كهلا يليبان لي رادو أدي أدبان لي سود وين هيا والديو أرديبه مركا أدان إن شاء الله سومالي دين سكوتر بالي يريس Jeg tænker, siden I er fokus, så prøver de at blande lidt dansk og somalisk. Bare lige kort. Hadan maaragta agendada maanta ani sharaxo kow waa soo dhaweynta haslayahan soo dhaweey hadda already hadhowde waxaan ku xigayo quraanka kariimkana xafladana ku furano biidnillah ayuub baan oo furay insha Allah oo yeeri doona ninkii yaray ma sha Allah kadib waxaan ku xiji doonaa khudbada gudoomiyaha jaamacad dir insha Allah sin hadalkan ku soo dhaweey doono kadibna waxaan u gudbi doonaa diiringelinta dacwada oo ustaad Mahdi insha Allah nala joogo aad ugu faraxsanahay kadib waxa ku xigi doonta Sucaad Axmed oo Soomaaliya kiimiga hun fawad no so langt marka u dambeysana waxaan ku xiji doonaa Xasan Saajin oo lawyer insha Allah hadhow waxaan u gudbi doonaa Itayla bi studene Fuad Xasan oo dhigto jaamacadda DGU insha Allah noo sharxi doono أساسون حاجة سبيجوجان هذا واجد شرح يوحيين تبي فكلا لدم كين بمديا كده حاجة حاجة سو أمرن أو فارماسي براتي كده من فاضوما سعيد ما كحجي لنا مركو دم بيسوالد بمسكوسو دويد دونا عبد الله أوك كده من حفلة نص قتيمة يدوله هيرادو هذا سعيد عبد الرحمن كل جين قرن نسين إن شاء الله مركا إن شاء الله ساسا سلان هاي قدومي وكده واجي أوردي سوليجة توليرا ولنعاس حركة نسدو كلا كود وليهين باركين كان حسوس إن شاء الله مرك إن شاء الله أيوب ياري صدوا محمد حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك أيوب إلهك بركيه هذه ما سنتهي مرك إن شاء الله لا كادي ودتك حفاتك إن شاء الله قدومي كسودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء. الحمد لله رب العالمين. كير ديميتنت كير جيست فيلدغا وأنتغا إيدي بيهولا إن ستوب جيبن هذا إنه إنجان مسي توحيد تنجان بيكلا توحيد إسلامي كتخصص أنفون مسي توحيد بوباين أوف توحيد epistolelser byder jeg velkommen til alle dimittend, student og tillykke med hugen. Waxaan aad u jecelahay inaan idinku soo dhaweeyo mar kale xafladan qiimaha badan leh oo ah markii ugu horeysay aynu dhismaheena ku qabsano masjid tawxiid
hore waxaynu u haysanay sanadkan dhammaystay dugsiga sare intan kaliya ma ahayn inta way ka badnaayeen dad fasax tegay dad xafladahoodu meelo kale ku qabsaday iyo in soo haleeli weeyday intaba way jiraan waxa halkaa ka muuqata marka la eego 5 sano ka hor 10 sano ka hor 20 sano ka hor xaaladda Soomaalidu sida ahayd sidan meel la isugu yimaada ma jirin dhalinyaro inta leeg oo hal mar dugsiga dhamaysan ma jirin waxyaalahaas oo dhan waa fadliga Ilaahay inuu nagu mahadnaqno dadaalka ay sameeyeen waalidku iyo dhalinyaradu haddii waalidka dadaalkooda aan lagu kaban ka dhalinyaradana ma aha kaliya waalidku inay ka iskuul hitago subax kasta ay maartay soo kala hinayeen 9 sano iyo 3 sano 12 sano ama 12 sano waalid baa daba joogay dhalinyaraduna runtii moraal bay u hayeen iyo inay ka qayb galaan waxbarashada insha Allah waxaan rajaynayaa inay halka ka sii wadaan waa bilow noloshu dugsiga sare sidaan ogahay gimnaasiyumku waxa la yiraahdaa waa tacliinta ugu adag marka la yiraahdo Denmark ma adka waayo 9kii sano hore ba ciyaar lagu jiray ilaa niina kalaaskii waa for show ba loo tigi jiray laakiin markay timaado anangii taqeedigi markaas waxbarashada dhabtii bilaabantay waliba feeriskii ciyaar ba lagu jiraa markaas ay ku adagta inuu weeyay markay si adkaanaysa hadana hadhow way fududaanaysa mas'uuliyad bay idin fuulaysa maanta waa ina doorataan waxbarashadiinii waa hadii aan idin geliyeen sanadkii nasashada ahaa waxyaalahaas oo dhan mar kale waxaan idinku hambalyeeynaya inay soo dadaasheen 12 sano 12 sano waalidiinta iyo dhalinyarada ama ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare laakiin waa bilow 50 sano wax soo dhiganayay wali arday baana shalay ugu dambeysay online ba wax ka dhiganayay marka waxbarashadu ma dhamaan yaan la moodin waxbarashada in la dhameeyay waalidkana yaan la niyad jabin waalidkuna yaan oo waanu daala dugsi sare marka hadii laga baxay waxbarashadu ma dhamaato diini iyo maadi labadaba maalin kasta waxba imanaya insha Allah waxaan rajaynayaa in halka laga sii wado in inta looga sii dhawaado inagoo intan ka badan meeshan intan ka weyn aynu maartay xafladeena ku qabsano aynu yeelano insha Allah bidnillah kariim masaajidku waxa weeye waa markii ugu horeysay xafladan qabtay oo sidan oo kale maalin dhaweyto xafladii qalin jabinta ama xiritaanka dugsiyada la qabtay qaabkan way ka duwaneed maanta qaab kale aan u dhignay bari qaab kale ay iman doona maalinba si baan tijaabinaynaa diyaar baan u nahay wixii sixitaana iyo wixii maaragtay toosin u baahan ee aan qaacadan masaajidka iyo ka faa'iideysiga masaajidka sida ugu badan ama sida ugu fiican aynu wada sameysano insha Allah billahi kariim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam gudoomiyadaadu ma santahay hadalka qiimaha badan aan la wadaagay marka insha Allah waxaan gudbeynaa haduu la yiraahdo walaal Mahdi baan ku soo dhaweey lahayn islay intan Mahdi hortan u dhiibin Mahdi dadkii aan garanayn Mahdi wuxuu naga mid ahay ardayda uu ka mid ahay masjid tawxiid wax ku soo bartay jaamacad buu halkan ka bilaabay Madiina buu hadda wax ka bartaa insha Allah diintu soo baranaya kadib qodbooyinka maalmahan ku qoran marka Mahdi aad ku soo dhawaan ku dheelaa bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala først og fremmest tillykke til de nye studenter og den succes, de har fået. Og derefter så vil jeg påminde dem om, at jo mere man er taknemmelig over for Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere så vil han øge en i velsignelser. Og den shakartum, la azidannakum, siger Allah subhanahu wa ta'ala, at hvis jeg er taknemmelig, så vil jeg øge jeres velsignelser. Så hvis du ønsker, at velsignelsen skal fortsætte, eller at den skal forøges, så det mindste, de kan gøre, det er at være taknemmelig over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og en måde, hvis man gerne vil være taknemmelig over for Allah subhanahu wa ta'ala, det er, at man først og fremmest afslutter, og man starter, hvis man skal fest, eller man skal, fejre den her oplevelse, at man gør det på en tilladt måde. At man holder sig væk fra de måder, som ikke er tilladt. Den anden ting, det er, at når I så efter skal videre på universitetet eller andre studiesteder, så en anden ting, som virkelig vil jeg opfordre jer til, det er også at styre på jeres islamiske viden. Det er rigtigt, det er godt, at man går videre, og man tager sig, når man er færdig med folkeskolen, til at gå til gymnasiet, og derefter tager videre til universitetet. Men det er ikke nok. Fordi i sidste ende, Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os en årsag. Årsagen til Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os der, og ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jeg har ikke skabt mennesket eller jinn, udover for mit tilbud, siger Allah subhanahu wa ta'ala. Så at man også har styr på den anden side. Og wala tansa nasibaka min ad-dunya. Og ikke glem din del af den her værtslige liv.
til Allah subhanahu wa ta'ala. Så de her to, de går ikke mod hinanden. Så at man også styr på sin værtslige viden. Profeten Muhammed sallallahu sagde, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. At søge viden og lære om islam, det er obligatorisk for hver muslim. Og viden generelt, det bliver delt op i to. Der er en del, der er en individuel pligt, og en anden, som er en samfundspligt. Der er en fard kifaya, fard ain. Der er en del af islam, som man skal vide, og som man ikke bliver undskyldt, hvis man ikke ved. Blandt det fiqh tahara, fiqh angående israelighed, fiqh angående salah, fiqh angående zakah, aqidah, hvor meget kender til din herre, hvor meget kender til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor meget kender til hans navn, hvor meget kender til hans egenskaber. Alle de her ting, det er ting, som man er forpligtet til at vide, som ikke bare er et valg. Så har man også den del med. Allah subhanahu wa ta'ala, og Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. En hver person, som går på en vej, hvor I han søger viden, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre en vej til Jannah nem for ham. Så hvis du gerne har en vej til Jannah nem for dig, så søg viden om islam. Ved siden af de studier, og man kan godt, man skal ikke gå all in og nu bruge al sin tid på islamisk viden udelukkende, man kan også have begge to. Men når det så er sagt, så vil jeg anbefale, at hvis man kan, og hvis man har mulighed for det, at studere udlandet eller fuldtid, hvis man kan. Jeg studerer lige nu i Medina, Islamisk Universitet i Medina, og det er der, jeg studerer fuldtid. Og jeg vil anbefale hver person, der er i stand til det og har tiden til det, at gøre det. Men hvis du ikke kan, så i det mindste ikke en der som ugen, en lektion om ugen. Vi har ugenlig undervisning i øjeblikket med Tawhid hver fredag kl. 7. Bare kom til den undervisning en gang om ugen. 1 time fra 7 til 8. Det tager ikke meget af din tid. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil stille dig til regnskab, hvis du ikke lærer den her viden, som er obligatorisk over for dig. Og Allah subhanahu wa ta'ala, folket af viden, han har opløftet dem. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala har opløftet de troende og folket af viden over de troende. Allah subhanahu wa ta'ala har opløftet i den her verden og den næste verden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger også, hvor han opfordrer og fortæller, at dem, der har viden om islam, og dem, som ikke har viden om islam, ikke er ens. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Er det ens dem, som ved, og dem, som ikke ved. Og det er ikke, fordi jeg er i gang med at skælde nogen ud eller lignende. Det er mere en opfordring. Fordi jeg ved altså, mashallah, alle sammen har sikkert mere viden end mig angående islam. Jeg ved ikke så meget selv. Men det er mere for at opfordre hinanden. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mahdi, jazakallah khair. Er det meget dig for de dyrebare ord, du har delt med os. Og lad gøre til dem, der egentlig får gavn af den, inshallah. Den næste, jeg egentlig vil byde velkommen til på talestolen, det er Suad Ahmed, som har læst biokemiker, inshallah. Så har han mikrofon til. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magaygo er Suad. Først og fremmest tillykke alle sammen. I ser så fine ud, og vi er så stolte af jer. والدينتو waxaa loogu yiri maanta af Soomaali ku ayaan lagu hadlin ciyalku inay fahmaan marka marmar baan idin ku qasaya kulli xooga wad ka fahmi doontaan insha Allah kære studenter og kære dimittenter mit navn er Suad. Nogle af jer kender mig og de fleste af jer kender jeg faktisk ikke, så det gør mig rigtig glad at se at der er så mange unge mennesker som er klar til at træde ind i verden, skulle jeg til at sige, og gå ud og studere. Så endnu en gang, tillykke alle sammen. For 11 år siden, så sad jeg samme sted som jer. Jeg var også student tilbage fra 2013, og der kan jeg fortælle jer, at der var ikke så mange mennesker, som blev studerende på samme tid som os. Og der var endnu færre, der stod på den anden side, som vi kunne spejle os i, som jo havde været, som var færdige med gymnasiet, og som også var studerende på universitetet, eller færdiguddannet på den anden side. Så først og fremmest så står jeg her i dag som jeres storsøster, som en, der har været der, hvor I er, og som også har været igennem uddannelsessystemet, og som nu i nogle år har været ude på arbejdsmarkedet med min uddannelse. Jeg er uddannet biokemiker fra Københavns Universitet, blev færdiguddannet tilbage i 2020, og lige siden der har jeg så arbejdet ude i industrien, først med noget farma, og så derefter med noget medicinsk udstyr. Og essensen af min tale i dag, jeg vil ikke gøre det super langt, jeg vil egentlig bare sige, at det har været noget af en rejse, og det er også en rejse, som I kommer til at træde ind i nu, og om I nogle år kommer til at stå på den anden side af, inshallah. Og hvis jeg har nogle takeaways, som jeg gerne vil give jer,
som I kan tage med jer gennem jeres uddannelse, men også have noget, så når der er I færdige på den anden side, det er, at vores diversitet, det at vi skiller os ud, det er en styrke. Det er en enorm styrke. Det har taget mig nogle år at nå hertil at sige, fordi jeg kan love jer for, at da jeg blev færdig, der ville man og fik et job, så ville man bare gerne være ligesom alle de andre, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Men vi helst ikke skille sig ud. Og problemet er, at vi skiller os rimelig meget ud allerede på forhånd, når vi kommer ind ad døren. Og så går man rundt og er lidt en undskyldning for sig selv. Fordi man kan ikke relatere super meget til det, der foregår, når det er, man sidder i frokosten og snakker. Vi har en anden religion, vi har en anden kultur, og nogle gange så går man sådan lidt og gemmer sig lidt og tænker, ja, lad os håbe, de ikke stiller spørgsmål. Lad os håbe, de ikke stiller spørgsmål til min kultur, til min baggrund, og lad os håbe, der ikke er et eller andet om islam i medierne i dag, som de vælger at tale om. Fordi så skal jeg ligesom være den, der skal repræsentere en hel religion eller et helt folkefærd, hvis det handler om somalienummer. Så sådan gik jeg rundt, i hvert fald de første 2 år på arbejdsmarkedet, og vil helst ikke tage de store diskussioner op. Alhamdulillah, jeg vil sige, at jeg er et andet sted den dag i dag. Det er, man hviler så meget mere i sig selv, når det er, at man tager det på sig og siger, jeg er den, jeg er. Min diversitet, det er en enorm styrke. Og hvis de har spørgsmål, så må de godt stille spørgsmål. Og så skal vi bare trække noget dybt, og så bare sige, jamen, det er den, jeg er. Det er min religion, hvis de stiller spørgsmål til islam, eller hvis de stiller spørgsmål til ens kultur, så vær stolt af det, når man begynder at sige, nå, er det sådan, I gør det her i Danmark? Sådan gør vi det faktisk slet ikke. Jamen, vi gør det sådan, og så kan man se faktisk, at de begynder, og folk er mest af alt bare nysgerrige. Så vi skal stoppe, altså det er bare én ting, jeg gerne vil sige til jer, hvis I skal tage med. Vi skal lade være med at være undskyldninger for os selv. Vi skal embrace, at vi har den kultur, vi har, og vi har den religion, vi har. Og jeg kan i hvert fald også lige fortælle jer, at alle de arbejdspladser, jeg efterhånden har været, der siger de fleste, jeg kender faktisk, jeg har arbejdet med en somalisk mand eller en somalisk kvinde, og de var vildt dygtige til deres arbejde, og de var vildt søde mennesker. Så vi ved allerede godt, at vi er awesome people. Så vi behøver ikke at gå rundt og være undskyldninger for os selv. Så embrace it. Nu skal I snart, nogle af jer skal starte allerede lige om lidt. Andre, I får lov at holde sabbatår. Det var noget, vi ikke fik lov til, dengang jeg blev færdig. Det fandt det slet ikke. Så jeg vil sige, til jer, der nyder sabbatåret, nyd det, arbejde og udvide jeres horisont. Rejs lidt, hvis I får lov til det. Og til jer, der starter, inshallah, husk jeres adkar. Og så til september, når I starter, så skal I bare gå ind, og så skal I own rummet. Og hvad end I starter med, så jeg skulle lige til at sige, der er simpelthen så mange uddannelser, og så mange valgmuligheder her i Danmark. Så embrace, hvad end I starter med, og brug jeres netværk. Jeg bliver så glad. Altså, jeg er sikker på, at der er nogen, der kommer til at snakke om SSO i dag, Somalisk Studenterorganisation. Meld jer ind allerede fra start af. Det fandtes ikke dengang jeg var studerende. Og brug hinanden. Og brug os. Og jeg håber selvfølgelig, at vi også får stablet noget netværk heroppe fra så helt på vegne af. Fordi vi er efterhånden en hel del, der er på den anden side, vil jeg have lov at sige. Så jeg vil ikke tage super meget af vores tid. Tillykke endnu en gang. Assalamu alaikum. Alhamdulillah barakatuh. Anu waxaan ahay axmaq. Soomaali baan ku hadlaa anu. Ma aqaano af Danish, Soomaali, macni Ingiriis, waxaas ma aqaano. Markaan dadkayga la joogo waxay bareen Danishkana Soomaali lagu hadlo. Inaad istaqaanid adigu weeye. Ani Xasan baa la yidhaahdaa, barasho wanaagsan. Mar hore yimi. Waxaan bartay sharciyada, sharciyaqaan, liisan ma haysto weli. Advocate ama gariiqaan Soomaali waxay yidhaahdaan. Laakiin sharciyadan kala falaqay anigu. Markaas waan idinka hadli karaa insha Allah. Laakiin waxaan marka hore mabruuq. Aad iyo aad waan idinku soo dhaweynaya. Okay. Waxaan 5 sano ugu dambeeyay anigoo 2 mataana dhalay waxaan rabay inaan noqdo sharciyaqaan ku shaqeeyo sharcigiisa oo isagu iska adag baan rabay inaan barto. Waxay igu qaaday inaan 10 kun oo koron shaqeeyo ilaa 5 ugu dambeeyay dambe oo aan rabay shirkadeeda aan kiciyo. Labaadkan waxaan ka shaqeynayay fiisa bilaa dadkeena caawinayay. Waxaan ku bartay badankana dadkeena caawiyo sharciyada. Intaasoo sharci baan kala aqaana oo aan ku kala dhex dabaalan karaa maadaama aan qof kasta caawiyay si oo aan bartay oo aan akhriyay oo aan soo baaray. Marka aniga aan u soo shaqeeyo meel ama aan kamuunka u tago ama aan hadda waxaan ka shaqeeyaa carruurta la qaadayo u tago wax badan oo alxamdulillah aan ka bartay oo aan ka faa'iiday dadkeena inaan caawino. Marka waxaan kugula talinayaa marka hore dadkeena inaynu ku dhalinyarada aan iska bilowno aynu caawino dadkeena. Waa la markoo adigu iska bilow Soomaaligu hadal hadda waxa laga hadlayay qiimaha badiya adu iskaro marka adu iskaradid ma dhuumanaysid
anagu maan lahayn waa run berigii hore dad nagu dayda ama aan gu dayno oo anagoo kale oo soo baray wax ama la soo baray wax maan lahayn berigaas hadda anagaan haysataan markaan isticmaala Facebook baan leenahay Instagram baan leenahay culimada naga war haysta dhigtan soo qabanaysa markaas isticmaala wadadana way adag tahay xaqiiqan in iska dhigna marka dheer maarig joogno waanu hayn niyad jab tahay laakiin nimadii niyad jibinayo ay xaqiiqada in sheegaya wadanka dheer maarig tartan weeya kalarkaaga la arkaa si kasta wax baro waa adkaanaysa laakiin ma haynaad awoodin laakiin ogaadi weeya wax barashada baranaysa waa in wax ina tarayso ma haynan barano wax kuwan sawiro wax oo kale ma khalad in la barto waa la baran karaa laakiin inaga inama anfacayso inagu tartan ugu jirnaa Soomaali ahaan tartan ugu jirnaa maarig dadkoo dhan tartan ugu jirnaa tartanka inay ka adkaano weeya marka inay waxayna qiimeynayaan dadkeena bulshadana saro qaadayna barano weeya waa muhiim in waxa iga dhigay inaan noqdo isu shaqeeyaan waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wax idinku inaad samaysataan oo aad noqotaan dad iska adag salaatiina soontiina markasta xilligaas idinka amra qof mid ma amrayo hadda dhibaato badan oo dhalinyarada hayso salaata ma tukanay shimaha hadda loo shaqeeyo wasaaradaha anigu soo shaqeeyo wasaaradaha salaad ma tukanay shimada marka shiikhuna uu ka hadlay wuxuu muhiim weeyay in salaada la tukado marka haddaan anu kala dooranay salaadeeda iyo waxbarashada waa iska daynaya salaadeedan qaadanaya way aakhirada waliina weydiina marka taasna in xasuusan insha Allah way anu taas ku koobaya marka la fiik inden vi kommer til en præmie overrækkelse opgave så vil jeg gerne give ordet til Ader Abdullahi Ok kusoo dhawaad Ader بسم الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبه نستعين على أمودها ودين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسؤولين مسجدك هي مشروعة قدية كلا دوانة مساجدك مسؤولين كلا أو قدية والدك قدية أرضية أيو قف كسته أو مارتك سوق بقى حفلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal anoo waqtiga beeqaaminaya waxaan u mahad celinayaa allaha weyn oo waaxidka oo inoo suurtageliyey halkaan inaynu inagu maamulanno oo ku cibaadaysano allahaasaan u mahad celinayaa oo ina mulki siiyey waxaan kaloo u mahad celinayaa walaalihii u howlgalay halkaan madaxda mashruuca mas-uuliyiinta masaajidka iyo qof kasta oo ka qayb galay suurtagelinta masaajidkan inaynu yeelanno waana u ducaynaya waana u mahad celinayaa walaalihiina halkaan fadhiya waxaan idinka codsanayaa inay walaalaha maqan gaarsiisaan gudiyada tan soo halgamay oo muddada shaqaynayo halkaan inoo diyaariyey waqtigoodii iyo maalkoodii iyo masaxdoodii ayay geliyeen halkaan waxaanan ogahayaa aada xoogaa lagu ahay barsantage ahaan markaynu u fiirsanno dadkeenna Soomaaliyeed oo muslimiinta oo halkaan degani inayan sidii la rabay uga qayb galin oo qayb inaga maqan yihiin waxaan codsanayaa maalinta yoomal qiyaamaha oo jamaha ah oo adduunka la duuduubayo haddaynu dalkeennii hataa inta janno ka samayno oo khayraad ku yaala la soo baxna aynu guddiga wada gurno qaar Soomaaliya halkan ku sugnaanaya maalinta yoomal qiyaamaha qaar Soomaaliya ku sugnaanaya waxaan codsanayaa marka qofka garashada leh baa xil ku dhibaa walaalaha hawshan diyaariyey xil baa dhibay mas'uuliyad bay qaateen ay leeyihiin oo lala wadaagay bay u qumeen waxaan codsanayaa in la gaarsiiyo qof kasta oo aqli leh in la gaarsiiyo in arrintaas lagu caawiyo walaalaha ku howlan oo mashruuca iyo masaajidka gacanta ku haya in lagu gacan siiyo oo waqtiga wax laga siiyo oo maalka wax laga siiyo oo tacabka iyo talada lala wadaago waan idinka codsanaya dadka maqan la gaarsiiyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ardayda ka soo qayb gashay munaasabada tan lagu xusay anigoo aad u daneynaya runtii dhalinyarada wax baranaysay iyo waalidkooda ku dadaalay Allah khayr Allah siiyo waalidka ku dadaalay inkastoo dawladdu ay bixiso aynu la noolay hadda waxaan idin sheegayaa dadkiina halkaan fadhiya dhammaantiinba ardayda iyo waalidkaba joogta dalkeenni hooyo ardayda joogta hooyaa la daba socota ilaa xanaanada ilaa
markuu jaamacadda ka baxana oo wiilashii diinta bartay oo qur-aanka bartay waa isdabareen waalidkoodna waxbay tareen laakiin kuwii injineerada iyo dhakhaatiirta noqday xabad ma tirin iyaga iyo ilmahoodii baa la biilaa hooyadood baa siisa canjeelada siisa waxaan idinka codsanayaa intiina wax baratay kelmaddii ay lahaayeen wiilashaydii khayr allaha siiyo fu'aad iyo xasan inkastoo fu'aad daanash ku hadlayoo ugu fiicnayn mahdi khayr allaha siiyo niman waxay diyaariyeen barnaamijkii intaan ka fahmayey aqoon diyaariyey oo dhiiri gelinaya walaalaha kale bay ahaayeen in lagu daydo waan soo jeedinayaa oo kor laysu qaado oo hooyo iyo aabbe kugu tabcay loo abaalgudo way kugu tabceene halkan iyaa ku keenay adduunkana ku keenay in loo abaalgudo dhalinyarada waxbaratay waa idinka codsanayaa guddiga iyo maamulka madaalooyin weli hagadu waa sidii weli hayaankii waa sidii waan dareemayaa fatuurkii iyo daalkii hore u gudubteen oo meel farqile aad ku socotaan mustaqbalka soo socdana aad maaragtay dad macno leh oo aad abuuri doontaan ayaan rajaynayaa mustaqbalka soo socda inaad dad idin bedelo oo idin nasiya aad heli doontaan oo ah dhalinyarada halkan fadhida aan soo gabagabeeyo maxaa inoo ballana waxaan idiin dardaarmayaa dadka walaalaheeda halkan fadhiya waxaan idinka codsanayaa idiinna dardaarmayaa midnimo haddaynaan midnimo ku howlgelin hawsheenna ku qabsan oo cibaadadeenna diinteenna iyo dadkeenna iyo tacabkeenna aynan gelinin waan jabaynaa waa linaga adkaanaya halkaa waxa inana keenana waa linaga adkaado waxaana inagu socda dalkiina ku socda dad la dagaalamaya dalka diinta dowladnimada duunyadeenna iyo dowladnimada waa la dagaalamaya baa inaga mida innaga yaynaan kuwa gacan siina kuwa hore u soconaya oo tacabka gelinaya wakhtiga dadka gelinaya da'yarta u shaqaynaya kuwa aynu gacan siino waan dheeriyey iga raalli ahaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا رأي هذا ما تاعي وقتي وسكورة يا مش إنه كلاتي مركا إن شاء الله هذا وحنقول سوق بدون إله دوله هذا فومنك سعيد دعوة هذا سعيد كسر هذا بسم الله الرحمن الرحيم والدين تشرفت له يا داليرada sharafta badan iyo marti sharafta badan dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulantii waanidan la kacayay waxa la kacay odayga og Allah barakeeyo subhanahu wa ta'ala kulli maanta waxaan u nimi xafladan dhalinyarada ka baxday insha Allah ta'ala kalaaska كوفيد قادتي هذا لو قد بيا جامعة إن شاء الله تعالى dhalinyarada waxaan kula dardaarmaynaa insha allahu tacaala horta ilaahay ha barakeeyo dhalinyarada masiirkay ku socdaanna allah u hagaajiyo jaamacadda iyo qalinkay qaadanayaanna allah u fududeeyo subxaanahu wa tacaala barnaamijku maanta waa dhalinyarada waalidka iyo dhalinyaradu maanta waa dhalinyarada ay ku saabsan yihiin barnaamijkani dhalinyarada kale dheenishka ku hadlaysay dhiirigelinta siinaysayna ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay waafajiyo dhammaantoodba gabdhaha iyo wiilashaba masiirkooda alla hagaajiyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kula dardaarmayaa waalidkiina insha allahu tacaala waa inaad baari u noqotaan qofka waalidkiisa baari u noqda insha allahu tacaala adduunyada uu ku xasilayaa maalinta qiyaamahana jannu ilaahay gelinaya subxaana wa tacaala acmaashii kale ee aakhire ama iftiinka haba noqoto oo cilmiga diinigana inaad isku taxallujisaan insha allahu tacaala inaad cilmiga diiniga barataan imika halkan dhowaan waxaa laga sameeyey dhalinyarada ilaa 15 jir ilaa 22 inay qur-aanka ku bartaan maalinta arbacada ay yimaadaan dhalinyarada qur-aanku xishood ma laha qur-aanku wuu idin anfacaya diinta islaamka wuu idin anfacaysa masiir aad u qurux badan baa ilaahay idin gelinaya qofka diinta islaamka ku dhaqma oo dhalinyarada intii hore asxaabihii dhalinyaro yar bay ahaayeen
marka dhalinyaradan maanta taagan waqtigan taagan aad bay ugu gaabinayaan xagga diinta islaamka marka waxaan idinkula dardaarmaya insha allahu tacaala inaad xagga diintana u baydhaan cilmiga maadigana allah idin hagaajiyo subxaanahu wa tacaala xafladahanna maanta kaliya maanan samayn xafladahan horey u jiri jireen masaajidka tawxiid insha allahu tacaala waxaa naga soo dhexgalay coronavirus cudurkii dilaaga ahaa markaa koley imika dib baan u soo celinay sanad kastana insha allah waanu qaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waqtiguna kule uu gaabaya insha allahu tacaala dhammaantiinba waxaan idinka tegayaa midnimadeenna iyo walaaltinimadeenna insha allahu tacaala waa inaynu isku dardaaranaa taqwada ilaahay dhammaanteenba dalkeenni inaynu ducayno innaga dhibaatada halkay nagu haystana waa innaga maanta aragnay dhallinyaradii halkay maanta fadhiyaan innagunbaa maanta weji u ah waxa kaliya aan maanta gacanta ku haynaa waa dhallinyarada waynu dhallinyarada jihaynaa midownaa wiigii dhaweyd waxaan maqlinay reer baa ubad laga qaaday qof soomaaliyeed oo maanta dee u dhaqaaqaya ama u soconaya waa yarti sida hadda xasan kaga dhawaajinay oo kale isaga horta hormuud u aba dhibaatooyinkaasoo dhan baan iska kaashan lahayn dhallinyarada suuqa ku jirtaan iska kaashan lahayn waxyaalo badan baynu iska kaashan lahayn haddaynu nahay waalidka marka waalidkow maanta halkan waalid badan baa fadhiya hawsha aynu dib u soo degno oo aynu eegno waxyaalaha ina hor yaalla ee dhallinyaradeenna iyo daraagiska iyo dhibaatada lagu hayo aynu ka doodno aynu isugu nimaadno iminka maraykanka iyo dibadaha kale caalamku si fiican bay u kaceen oo tvda wa daawataan marka inaguna barnaamijyada nooca insha allahu tacaala waynu furnaa oo isku dhiirigelinaa oo aynan qofku isku koobin keligii nina maanta waxba uma baahna guri walba waxaa yaala lacag baa taala waa qani laakiin danta caamka aynu ilaashano waxay naga dhexaysa marka walaalayaal allah idin xafido dhammaantiinba xafladda waxaan kusoo gabagabaynaya dhallinyarada saynu ducaynaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inay noqdaan awlaad baariya oo waalidkooda anfaca allaha ka dhigo subxaanahu watacaala kuwa cilmiga diiniga islaamka gacanta ku qabtana allaha ka dhigo kuwa cilmiga maadiga maantay baranayaanna ay kuraasta tegayaan jaamacadahana allaha u fudaydiyo dhibka iyo mashaakilaadka ku xeeranna allaha ka nabadgeliyo subxaanahu watacaala jeelasha iyo daraagiska iyo muqaadaraadkana allaha ka nabadgeliyo dhammaanba waxaad kula talinaya kalena xijaabka gabdhahana in diinta islaamka nabadda oo rukni ka mid ah aynu dhammaanteenba insha allahu tacaala gabdhaheennana ku waanino xijaabka dumarka waaweyne xijaabka inay qaataan diinteennuna sidii u nuuri jirtay aynu u nuurina insha allahu tacaala dhammaantiinba allah idin barakeeya subxaanahu watacaala wasalaamu calaykum waraxmatullah amiin adeer barakallahu fiikum aan ku leenahay insha allah marka insha allah hadda dee insha allah programkii wuunuu maa rabaa waxaa noo haray dee tisiistaraasabaiday nudqaymiga u qaagisa barakallahu fiik aad u mahadsan tahay dit hjælper overduen en del med os. Tak for det. Det næste, vi egentlig skal nu, det er, nu går vi videre til de taler ved de studerende, som også fremgår af programmet. Marka ardayda ma insha Allah isleeyahay hadalka ku soo dhaweey ko waxaan ka bilaaweynaa walaalkeen Fuad oo dhigta jaamacadda DTU software marka Fuadna wuxuu kamid yahay dhalinyarada masaajid ka shaqeeya ma sha Allah ku soo dhawaaw dika oo tahay Yes, assalamu alaikum. Yes, først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke til de nye studerende, eller studenter, som der er lige blevet færdige, mashallah. Og jeg vil også godt sige tak til Masajid Tawhid for at invitere os. Og yes, kan vi klikke videre? Yes. Ja, så vi vil gerne snakke lidt omkring, vores baggrund som studerende, for at give lidt inspiration til I nyudklikkede studenter, for at se, hvilke veje I kan tage i fremtiden, inshallah. Og jeg er den første taler, der starter. Mit navn er Fuad Hassan Jama. Som I nok kan høre på mit accent, så er jeg ikke fra København. Jeg er jyde, vaskeægte jyde, og originalt fra Fredericia, og jeg har en alder på 26 år. Og min baggrund i forhold til uddannelse, det er, at jeg har en bachelor i software engineering på SDU. Jeg er programmør, og lige nu så læser jeg på en kandidat i computer science og engineering på DTU. Og jeg har også et studiejob som associate development engineer hos Novo Nordisk.
Og mine interesser, det er, at jeg kan godt lide iværksætteri. Jeg kan godt lide at være aktiv generelt. Jeg er også aktiv i Massage også. Og jeg kan godt lide udviklingsarbejde. Hvor end det er, jeg ser mulighed for udvikling, der kan jeg godt lide at gøre mit for det. Og jeg elsker også kampsport, så hvis der er nogen af fyrene, som der ser UFC eller boxing, så kan I bare snakke mig omkring det, Charlotte. Yes. Ja, og frivillighed. Jeg har været en del af fagrådene på studiet, og jeg er også en del af Somalisk Studenterorganisation, som der er blevet nævnt. Så ja, det er så min baggrund. Og studielivet som softwareingeniør på DTU, det er, at man har et schema fra mandag til fredag, 8 til 16, lige til at starte med i bacheloren. Det er i hvert fald sådan, man kører. Og man har typisk forelæsninger, der kører med 2 timer forelæsning, og så efter det, der har du exercises, hvor du lærer at bruge de ting, som du har lige lært for forelæsningen. Så det er 2 timer forelæsning, 2 timer exercises, 4 timer i alt. Og der er gennemsnit per dag, så plejer man at have to fag, du skifter imellem på bacheloren, og så på masteren, så bliver det lidt mere stille og roligt, hvor du har 1 fag i gennemsnit per dag, og du er måske kun i skole 3 dage om ugen også, så det er lige hårdt lige i bacheloren, men så på kandidaten, så bliver det stille og roligt. Og arbejdsbyrden, som man siger, at det er nok det første ting, I hører, når I kommer ud på studiet, det er, at det er ligesom et fuldtidsjob, så der bliver forventet, at I arbejder 37 timer om ugen. Men det er tilsvarende bare at studere fra mandag til fredag 8 til 16 nemlig, så det er nok ikke helt så det, I ikke er vant til at gøre allerede på gymnasiet. Og så har jeg også sat noget op med, at I på universitetet, så regner man i ECTS. Det er måden, man regner, hvor meget et kursus er værd, og hvor meget man skal arbejde i det. Og du skal have 60 ECTS per år. Og det er tilsvarende ca. 1650 timer. Så det er så mange timer, de forventer, at de putter i jeres studie om året. Men det lyder så meget, men igen, hvis du bare ser det som at gøre det fra mandag til fredag til 16, så er det stille og roligt. Og studerende, de plejer at være meget gode til at hjælpe hinanden, fordi vi prøver alle sammen at komme til samme sted hen. Så man plejer typisk at hjælpe hinanden med opgaver og afleveringer, så alting det bare bliver nemmere og så videre. Så yes, og så nogle tips til uni. Skaffe studiejob så hurtigt som muligt. Ikke være bange for, at jeres kompetencer ikke er nok, eller ikke kan finde ud af det, og det er måske svært på arbejdet. Nej, de plejer også at være gode til at tage hånd om jer og vide, at I er studerende, og at selvfølgelig så, at I ikke ved det hele, og det bliver ikke forventet, at I kan vide det hele heller ikke. Så allerede, jeg vil næsten sige, altså jeg har nogle kammerater, der allerede fra første semester af fik et studiejob. Så tidligt som I kan, så prøv bare at sende en masse ansøgninger, og så få et godt studiejob, fordi der er meget erfaring, man kan få derfra af. Og få en god studiegruppe, som minder hinanden om deadlines og gode råd. Jeg har den værste hukommelse, så jeg er blevet reddet 1000 gange af nogle klassekammerater, der har sagt, at der er en aflevering i næste uge. Og så tænker jeg, wow, okay, den skulle jeg lige fat på. Så få en god studiegruppe, som I kan hjælpe hinanden. Og netværk og snak med dine studerende og lære omkring arbejde, fordi at det er typisk sådan faktisk også gennem netværk, at man får arbejde og studiejob osv. Så det er også et god fif. Og så lær dine ældre semesterstuderende at kende, fordi at de har haft de samme kurser, som I kommer til at have. Så derfor så er det meget nemt at kunne få en god aflevering fra en tidligere ældre semesterstuderende osv. Så det er et godt tip også. Yes, slide.